وهي تشيلة إذا حرادة دقحلي arrimo la yaab la horta xarada maalmahan ka socdaan ma aragtay gabdhiyo oo isqaawinayaan gabdhiyo oo video qaldan iska duubayaan gabdhiyo ayagoo wada qaawan oo murduq la soo duubayo qadka la soo gelinayo marka arinta ayada waa arin ma aragtay na saameysay bulsho ahaan qaasatan haddana waxay hadda maalmahan dambeeto oo ugu badan gabdhaha baantuuda oo isqaawinayaan oo la sheegay sawirkooda intay isqaawiyaan inay u dirayaan Mareykanka oo ninka sawirkaaga oo qaawan soo dir kula ku balan qaadayo inuu gaari ku gadaayo ama lacag uu ku soo diraayo bil walba bil uu ku soo diraayo arrimahaas ku qasabtaa maqlays inay isqaawiyaan soo xagaratamaan marka waxa torto waa cara ilaahay mana fiicno waxaasna in lagu dhaqmo zaid ay u xun tahay marka qofkii lagu arka asagoo qaawan oo isduubay haday ahaan leed wax qaldan asagoo sameynaa iyo asagoo sidiisa qaawanbo iyo qofkii duubay qofkii kamerada ka qaaday tilaabo sharciya laga qaadayaa shalay oo kale dad baa la soo xirxiray oo arrimahaas awgeed lagu soo xirxiray marka way soconaysaa Soomaalidana kulay sida aan maqla qaar waxa jira ayagana filimaan soo duubay ayagoo qaawanaysa soo dhigay qadko marka dadkaas oo dhan waxaan uga digayaa arrimahaas qaldan oo Ilaahay looga fogaanayo inaysan sameeynin soo xagartama ninkii lagu arkana tilaabo sharci laga qaadayo oo la xiraayo heer maxkamad la geynayo wiilka ka duuba gabar ayadoo qaawan gabadha ayadoo qaawan isduubtay labadaba sharciga la geeyay qofkii ka duubay iyo adigii oo isduubtay labadiina sharciga lagu wargeeyay tilaabo sharciyan laga qaaday ma aragtay qaarkood wali waa la xiray because hadii aan la xirin oo tilaabo sharci laga qaadin hadhowti wixii wax soconay ayuu noqon doonaa marka waxaan dhihi lahaa bulshada arrinkaas ayada jirta ha laga foojignaado waa la ogaaday waayo sawirkii baad u diraysaa qofkiina bulshadu ku baahinaya ka soo qadin Mareykan jira sawirka u diraysaa sawirka asagana saaxiibadiisa oo joogan Afrika u soo diraya marka hadda dhagaxley qaas ahaan sida aan maqlay in Mareykanka niman joogan ay sawiraantii bulshada ay ku soo galiyeen qadka oo lagu dhax arkay sida xagar dheer dhagaxleyn hadda sheekada xagar dheerna way ka bilaabatay dhagaxleyn hadda way jirtaa dad fara badan oo la hayaa ayagoo qaqaawan sawiraantooda la hayaa oo la arkay qaarna sharciga lala tiigsaday qaarna hadda loo soo socdo la soo qaban doono marka gabdhaha waxaan uga digaa Ilaahay laga cabsado midada kale culimadii waxa la rabaa inay arrintan ayada ka hadasho waayo hadii culimo wax qaldan la sameeyo because halaaga dhici kara dhulgariir muxuu dhacaa waxyaalaha qaldan oo la sameeynayo marka maadaama haddana la isqaawinayo iyadoo qaawan qadlis soo galinayo awal maadaama heesi gabdhii ay ku waashaan oo TikTok iyo meel intii la isku soo duubo ayagoo qaawan ay maartay nin qaawan ma arkaysid waayo waxay naagaha wax isku qaawinayaan aniga waan garan waayo jirkooda cawradooda banaanka ay u soo dhigayaan soo xagaratamaan ninka adoo qaawan sawir intuu ka qaado qadka soo dhaxdhiga uma maleynaa inuu mustaqbal ka rabo ma fahad ama naagta qaawan ninka guursanayo kolayta asagana waa ma ogeys gabadhiisa wadana saan bay isku qaawinay marka waxaan waa Jane hadii Jane kaas ayada hadda laga foojignaan waayo waxay noqon doontaa wax ma aragtay hadhowti oo ishak ratiga weyn meesha maruu ratiga yarna mari doonaa marka bulshada waxaan uga digayaa inay arrinta ayada ka foojignaadaan kale culimada waxaan aan leeyahay arrintan ayada jimcadana ugu soo reeyay khudbada laga sheego oo maartay dadkii hal la hadlo oo dadkii Ilaahay ka cabsiga way iloobeen alla ka cabsigi maaragtay lagu booriyo oo hal la hadlo culimadeena meel ay ka baxdo waan garan lahay soo xagartama arrintan way sii weynaan doontaa qoon dhan maartay wuxuu noqon doonaa inuu halaag ka dhaco soo xagartama intuu marka halaag nagu dhici lahaa waxaan ka baryayaa ishaq Ilaahay inuu horto oo nawaafajiyo qayrka mid labaadna culimadii waa inay ka hadlaan arrintan ayada oo dadka wacyi geliyaan oo dadka u sheegaan alla ka cabsiga oo inay la hadlaan dadkii arrintaas ayadana bulsho aan ka codsanayaa culimo diinka xarada dhagaxley والله هذا السيد مركان ورئيسته مركان فيديو ير قارن كي يسويران قارن أركي مركان ورئيسته وحلي يقول هاي جاري وانكو قضية العقب انكو صدر إياه نمك بدنا واحد تدخل دلهم على العقب سو حاجة تمام مركان وحقوم ليه ومقرن كري لكن وح ما ركتاي وسفهات هذه مع قوم والبنو حب الوسفه هذا مركان والسفهات وحقوم ليه وسفهات إلهي ما ركتاي ومدن شيطان وهر سيده مرك إلهي وحنكبر يا إنه إلهي سبحان قدرك والقبلهم waxay sameynayaan inuu Ilaahay balbadal fiican oo qeyr qab Ilaahay ugu bedelo dadkan cawradooda banaanka soo dhigayaan inuu Ilaahay ka qabto gabdhaha waxaan u daawanaa Ilaahay laga cabsado sabraantan qawliga aad qadka soo gelinaysiin alla iska dhaafo saasan dhiila gabdhaha Ilaahay ka cabsada waxaan aad soo duubaysiin aqri adduunba martay wax faa'iido idin ku jira maahan qofka bilaadanka wax faa'iido ugu jiro inuu ku daaro waxaan dhiilahaa gabdho ay isqaawinina inta isqaawinleed أنت إسقاطية وحكون أنت الله أنت رهر وتكتب شقيس رجعنا إلهي كمان عبسنا أنا رجعنا أمريكا تجانا حيوم لنا نولدنا بني أمريكا كحرمتاي ور أمريكا اللي أنت هذا الله نولدا
soo xagarata ma 30 sano xaraq wuxuu ku jirnaa America wax ka imaan waligeed ma waan shaqaysanaa waxna waan baranaa alxamdulillah America lacagta ka imaato waa lacag xaraan ah dadka cunaayana kulleey taayay u taala ma fahanti laakiin lacag meel laga keenay ee in lagu soo dhaqay meel laga keenay aad garanaynin baa la iska cunay dad loo soo diray America lacagta ka imaato kulleey ani sidaan shakhsi ahaantayda aan qabo lacag xaraan ah ninka ku dhahayo jirkaada gado soo sawir ma aragtay gaarigan ku gadi ka kulleey ku mustaqbalka raaw maahan waa ku inuu kugu dheeldheelo raaw gabar markuu ku dhoonin isu soo qaabi ninka waxa la rabaa inaan lambarkiisa iska dhileed gareysid aasaasan ku ilowid ma aha nin nolosheeda Ilaahay subxaan qadirka ku dooro ma ahan marka nin fiican oo sharaf leh waa nin markaad qaawinta ku dhoo is astur waa nin xumaanta ka celinay ma fahad laakiin nin xumaanta kugu riyaaqay oo kugu sacbato ma hada aragto ninku rabo ma ahan inuu muxuu rabo dantu leeyahay markuu ka gaaran oo ka tago marka gabdhaha Soomaaliyeed khaasatan gabdhaha qaxootiga jooga waxaan dhihi lahaa sharaftiina iyo qiimihiina ha ku dileynina lacag waa la heli nin walbana intaad shaqaysato ama reer u shaqaysa ama reer dhar u dhaqdo ama ma aragtay in suuqa inta tagta aad ma aragtay bacal la gada ama dukaan aad gado ama cilaan ba aasarto gabdhaha ma aragtay aad qurxiso aad lacag ku heli kartaa soo xagaratman ma aha iskuul tag iskuul baro niska hore iskuul baro niska dambana waxa shaqayso oo hadaad rabto shaqo Ilaahay ina isqaawisi kali shaqo ma aragtay israaqada kuma jirto shaqo xalaal ah heli kartaa oo jirkaadana aad u qaawinaynin marka gabdhaha waxaan dhihi lahaa Ilaahay laga cabsado